بسم الله الرحمن الرحيم وأحمد حسن حسين أحمد شلكة maanta oo ay taariikhdu tahay 14 bisha labaad 2023 maalin talaada ah waxaan halkan ku duubayaa gabay la yiraahdo dulmane oo ka hadli doona xaaladda guud ee gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn ama Khaatuma State oo maalmahan duqeymo iyo sidoo kale falal bini'aadantinimada ka baxsan uu ka geysanayay maamulka Somaliland ee uu hogaaminayay Musabbix gabaygu dhinac wuxuu ka hadlayaa culimada sidoo kale ninka ka tagay Burca Hargeysa iyo Berbera ee ku dhimanaya gudaha Laascaano iyo Sool iyo ka loogu tagay halka isku difaacaya ee ku dagaalamaya sidoo kale kuwa soo afcelin doona ama ku dooda ninka jijiga jooga ee Axmaar guuleysata muxuu ka oranayaa xaaladda Laascaanood ama maxaa uga bannaan gabaygiina waa kan ee dhageysi wanaagsan la hedhe hoyaalayey hoyaalayey hoye hoyaalayey 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 hoye wardeeleyda maansiyo tixdaan duubi jiray waayo eedobirgaariyo lahayd duxiyo idanka anigoo u meeldayay haddaan gala diiwaankeeda ruwaayigu daruuriye haddaan danuga fallodo runta lama dade waa inaan dawga mariyaye alcaawana halkuu daaran yahay baanka doobdhabiye doobka u hoorsada murtidu way daaweyn tahay inkastoo colaad lagu degdego aan dux laga dheefin inkastoo dagaaladu dhalaan diiqadiyo geri inkastoo dadaan jecelihiyo diriciyo wayno daa'imada agoonta owda iyo dumarka hooyaya inkastoo addoomaan isdili dib u dhac keenayo inkastoo addoomaan isdili dib u dhac keenayso inkastoo dad Soomaaliyeed wadaaristo xayo oo ay diin islaameed wataan labada daamoodba gardarrada ka soo duulay baa duulka loo sudhiye warinaad dirays qaadatiyo diiraliyo ake dantaa kugu qasbayso marbaad nololka doontaaye danbaa kugu qasbayso marbaad nololku doontaaye ayaamahan dabaylaha socdee xiinka daamin waayey duufaanta Laascaana iyo Soolka daaganaysa inkastoo la daalacaanayo daaqa laga fiirsan runtanimuu dulqaatiyo ninkii daday yidhaahdaba dadku kala bax waayuhu markuu soo duraaqsaday wadaadada digriga faafiye loogu daba faylo duqaydii waxgarad sheegatiyo culimadii dooday doorkay lahaayeen hagaaguma daraasayne oo qaarkood warkay soo direen yaabtay dunidiiye iska daa dabiib laga dhaxlee damaqday boogtiye xoolaha dabar kasii goosato durugtay mooyaane nabad lagu dabaaliyo ma dhalin baaqi shaydan ahe haddaan duubkan weyn iyo cilmiga daacad laga sheegin wax kalaa ku hoos duugan oo lagu dadayaye xaqu daahir weeye haddaan daaha laga qaadin maxaa diinta loo xadahayaa dowgal baa jiraaye adoo dagaaladaadii hurdiyo daaska gurigaaga
dabadoo shidaynoon cidnaba kibir ku daandaansan dudadaad lahayd iyo halkii darintu ku tallay ninkii subax ku soo duulay damacu been sheego adigoo idaa yidhi dheguhu ma daloolaane danab iyo haddii uu rasaas kugu dul rogeeyo danab iyo haddii uu rasaas kugu dul rogeeyo nabadaadu wax badan daydayeed keli ku daaraysay dulmi laguma naaxee hadduu kaga dacareeyo daa'imada hadduu laayo ubadka ka dooxo naftaadoo difaacdiyo inaad diriiru dhiilqaado waajib buu dagaalkugu yihiyo shay daruuri ahe siday diintu sheegtana matihi daalim dhiig qabaaye daliilkiina waa loo hayaa loo kitaabdayay daliilkiina waa loo hayaa loo kitaabdayaye war midkiisa dolaalay iyo kibir ku soo duula dariiq dheer ninkii soo galee soo dabguranaya ee dhiig islaam doonayo si uu soo dadsho ummad farax ku daanshoonaysiyo nabad deegaankooda oo aayahooda dambiyo dana ka xajoone waro aayahooda dambiyo dana ka xajootay hadduu dhaho sidaan doonayiyo qaada damacayga ama aan ku dilo waa wixii koofi loo dawaye ninka dool ku yimid oo haddaa darajataa mooday dulmi wiil sameeyaa khadhaadh loo dambaariyaye daliilkiina waa loo hayaa loo kitaabdayay adiguna dadkaad gowracdiyo dumar waxaad laysay agoomaha duqaysiyo kuwaad gubaysa daartooda ubadka derbiga seexisee dumisay hoygooda aakhiray xisaabku dambayn diintusay tidhiye war dariiqeed ku dhimata su'aalku dana timide docda kale haddaan furo midda waan ka soo degaye daraawiishta gaylama haysaa waa dulmanayaa leh damaaciga hargaysiyo falku muuse daawa joogo daynkuma leh iyo xoolahay ugu dudayaane qabka lagu dagaalamahayaa waa mid daba dheere qabka lagu dagaalamahaya waa mid daba dheere ingiriis raggii dirta ee dooxan jiray galka koofil iyo dirkiisii raggii daaqad kala booday dirqi kuma ay maamuli karaan duulkan maganiye madugowda taariikhda iyo shay mardaalaacaye gobanimeeda loo diriiraye gelaysa diiwaanka insha allahu way soo degdegi doorkan maanta nimankaasi calan dooray iyo qaranku doodaya waxay shalayta diidayra kale kula dulmeeraane dowladnimo hadday joogto shacab danaynayso dumbuuqiyo gantaalada bulshada lagu duqaynayo dugsiyadii aqoon loo dhisiyo ama dakhaatiirta ee goobihii diinta iyo dacalna aan dhaafin garnayladan dul jooge ilmaha diiyey ruuxdooda
dembi weeye caalamiya hoy daynku gaalayaane ha dabcina ninkii doola waydan u run sheegtaaye haddii aan ka daadaga tanoon daanta kala eego walow damaci baarliinka yimid doogta igu reebay oo ay dowladii reer galbeed daba socdaan galka gumaysiga jigjiga soo degee dood ka dhigan doonto 100 sano dagaalkan la galay kuma rognay daahe darbadahan la eegtiyo sidaan ugu dullaanteeyey warsheynuhu raggu soo dirsaday dunida gaadhsiiyeen warshinuhu raggu soo dirsaday dunida gaadhsiiye sayidkii daraawiish dhisiyo weligii duulayay ilaa dayrtii wiil waal ninkii damacsan ciidayda inaan daanka jabiyo wax badan daqara gaadhsiiyey labo daabac bugaagta iyo kumanka diiwaaneen wargarta daba maraysa inaad dawga ka halowday oo aad dayowdood indhaha xanan ku dirayso war soomaalideedyo runtaan dhiilka ku dariye marka deeq la qaybsanahay iyo talada deegaanka anaa kaa dalweyn iyo warbaad igula doodaayeen anaa kaa dalweyn iyo warbaad igula doodaye axmaarada daroor yeelatiyo dalaga harsheekha gaashamaday ka doobdhabi jirtee day koodhan weyday degmadiina taladeeda waad uga dambaysaaye oo diiwaan adhiis yaalabaa lagu dabalaaye war diiwaan adhiis yaalabaa lagu dabalaaye maydinka duluus gaara iyo daawo kala qaata dabarka iyo seetay intaa kula dul joogaane marna diiday odhan weyday iyo gogosha idaye sida sheekh duruus laga bartaa laga ducaystaye war madiin baad wadaagtaan aday ka dabshidataa